حاشني كيدو ويلكوي هلايا واحمد رقيسه شويه waa tuma wardaxaashi maxay tahay sheekada hadalhaynta badan ka abuurtay baraha bulshada ee ku saabsan wardaxaashi sidoo kalena wadna xanuunka ku riday gabdho badan oo la dhaho magaca wardaxaashi si aad wax badan uga ogaato wardaxaashi fadlan daawade muuqaalkan like saar asxaabtaadana u sheer garee falowna soo dhibeyjkeena si aad noola socoto mar walba mahadsanid tan iyo markii ay shaac noqotay sheekada wardaxaashi waxaa baraha bulshada qabsaday rag badan oo u ordeeya inay isku sheegaan ninka wardaxaashi oo la garan waayay wardaxaashi ninkeedu wiilkan weeye hadlaaya waaba adigaba aniga maxaa rabtaa marka adigu wax ma dheeri ragayga nasiib waa i haleelshay oridayda wanaagsan ayaan waafi u qaatay masha Allah min yarayn lagu waabto waqtigaan uma jeedo hadda jaaniskeeda ma waayin waxaan diiday masayrka inay xaasku wareerto walbahaar la daciifto dooni maayo walaale dookha ha isku walaaqin kaabay dookha ha isku walaaqin wiilashaa kala raadso sidoo kalena waxaa dhinac socday gabdho badan oo sheegaya inay diyaar u yihiin inay wardaxaashi ninkeeda la guursadaan ayagoo sababta ku sheegay inuu yahay shaqsi wanaagsan oo mudan in laga agdhawaado wardaxaashi lafteedu waatan maanta hadlaysa ayaanay warwarkaagu wax dhan buu ii wareeshay oo warkaaga dhagaystay wax dhan baan ka wareegay ka weecweecday codkaaga wax dhan baan is iraahday waa dambe is xasuusan haatan waa u dambayne waanadayda balqaado wanaagaad ku arkaysid ninka waalay xiskaaga wax dhan baan u samraayay wax dhan baan maqalkiisa ka ilaaliyay warkan waa jacaylka naftayda walad baana dhex yaalla kama maarmo warkiisa wejigiisa dhalaala ee walaala ka leexo haddaba sidee ku timi sheekada wardaxaashi maxaase ka run ah sheekada wardaxaashi waxaa dhowaan maanso ay tirisay ku soo qaadatay abwaanad kaaba caydiid taasoo noo sharaxaysa ujeedka maansada iyo sida looga falceliyay weli way socotaay rag waxa ugu liita kana soo waclaydkana weydiiyo taswiirta waqtigan hadda jooga nin wanaagsan la waayo waxaan weerar ku qaaday ama aan la waraagi wardaxaashi ninkeeda ee ay u yeelatay saamaynta aadka u weyn waxayna sheegtay inaysan maansadu kaliya ka hadlayn wardaxaashi ee ay ahayd maanso dheer oo dhinacyo kala duwan taabanaysa marka laga soo tago sida sheekadan ay u yeelatay falcelinta faraha badan ayna u noqotay halka kalmad ee maansadaas oo dhan laga soo qaatay waxay muujinaysaa sida ay dadka Soomaaliyeed ugu foogan yihiin masayrka ayna dhigtoodu u maqasho erayada abuuraya masayrka ayadoo la sheegayo inay dhowr gabdhood oo wardaxaashi lagu magacaabo seexan waayeen oo ay sheekadan saamaysay qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag fikirkaaga ku aadan sheekadan xiisaha leh